dib u eegid dalka soo baxay dagaal sokeeye ayay ka dhigneed in la baro waxa arday intaan la eg sidaas waxa ku bilaabay hadalkiisa safiirka u fadhiya dalka UK Soomaaliya David Kanker oo ka hadlayay xaflad ay soo agaasitay Safaarada Britain ee Soomaaliya taas oo lagu dabaaldegayay waxbarasho ay ka soo dhameysteen dalkaasi Britain Arday Soomaaliyeed Jaamacadda Shiva University. And every one of the Chevening scholars, including those amongst us today, they're selected from a very large pool of very talented people. Generally, there can be more than 200 applicants for what might be 6 places in all. So that gives you, I think, a good measure of just how special and extraordinary the individuals they are. And they're selected on merit, they're selected on potential, they're selected on just all-round brilliance. And above all, selected because we, and it is we because we do the selecting, think that they have what it takes to go on to do great things for their country. Jaamacadda Shivan ee ku taala dalka UK waa jaamacad xilligan siisa waxbarashada lacag la'aanta ardayda Soomaalida ah kuwaas oo qayb ka ah arday Afrikaan ah oo inta badan ay siiso waxbarasho bilaash ah jaamacadda Shiva University ee dalka Britain waxaana ardayda Soomaalida ah ilaa iyo 10 sano ugu dambeysay wax ka baranaya jaamacaddaasi ay yihiin kuwa iyagu helay heerar kala duwan oo xagga darajooyinka ah kuwaas oo qarkood ka noqday hogaamiyaal siyaasadeed Soomaaliya welina ka ah munaasabadaasi lagu dabaaldegayay waxbarashada jaamacadda Shivan ardayda Soomaalida ee ka dhacday Safaarada Britain ee Muqdisho ku taala waxa ka soo qayb galay wasiiro ay kamid yihiin wasiirka waxbarashada senator ka mid ah aqalka sare ee dalka iyo gudoomiyaal degmo oo kamid yahay gudoomiyaha degmada Hodan kuwaas oo dhamaantoodba ah ardayda ka soo waxbaratay jaamacadda Shiva University ee dalka UK ardayda munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa iyana waxa ay hadallo mahadcelin u jeediyeen iyagoo hadal ka jeediyay munaasabadaasi dawladda UK iyo shaqaalaha guud ee safaaradda iyagoona sheegay inay ahayd riyo inay wax ka bartaan dalka UK si bilaash isla markaana ay Soomaaliya ku soo laabtaan. Still, I think we need more. And I'm very happy that Ambassador also mentioned this, that we will have more juvenile scholars. I'm very glad to connect with all these juvenile scholars. I would say a magic thing to happen. It was like one of the best things that ever happened to me. I have never imagined that I will go to the UK to study masters, that I will go to such a prestigious university like Manchester. So what is really possible with the Chevening is unimaginable. Like it's such a great experience. gabagabadii munaasabadda waxaa dawladda UK xubnihii ka socday ee Safaarada Britain ay sheegeen in mar walba dawladda UK garab taagan tahay Soomaaliya waxa ugu horeeya ee kala shaqeynaysan inay tahay waxbarashada oo ah waxa kaliya faraha u ah dalka Soomaaliya oo in ka badan 27 sano ay ka socdeen dagaal sokeeye oo in badan oo waxbarashada Soomaaliyana meesha ka saaray Maxamed Bishaar Barre Jaamac goobjoog Muqdisho.